kulanti wanaagsan dhamaantiin dadkana daawanaya ku soo dhawaada barnaamijka Murtiye Maaweelo oo kala socotaan telefishinka Goobjoog barnaamijka oo arrimaha fanka dhaqanka iyo xikmadda Soomaalida aanu si guud ugu falanqeyno ayaa toddobaadkani wuxuu yahay toddobaad ka xiiso badan toddobaadyo badan oo hore soo aragteen toddobaadkan waxaanu ku falanqeynaynaa oo halkan aan ku soo gudbin doonaa qaybo kamid ah fanka Soomaalida iyo heesaha aad hore u taqaaneen balse qaabka loo qaadayo ay runtii tahay qaab aad idin xiiso gelin doonto waxa martin noo ah fanaankeena aad taqaanaan fanaanka dhalinyarada ah Nimcaan Hilaac oo markan qaab ka duwan qaabka aad uga barateen inoogu heesi doona Nimcaan iyo macallimiinta kale ee barnaamijka qaybta ka ah waan soo dhaweynaya marka hore barnaamijka aynu guda gali doonaa heeso badan oo madadaalo ah kuwa badan oo xiisayn doontaan ayaad ku daawan doontaan balse soo dhaweyn kadib waxaan weydiin doonaa Nimcaan marka soo dhaw waxaan ku weydiinaya soo dhaweyn kadib dhalinyarada waxa la yiraahdaa heesaha kamanka iyo qalabkan kale ee darbuugada iyo kamanka kuma heesi karaan bal arintaas dooda maxaa ka qabtaa Cumar horta marka hore waan dhawahay aad buu salaamayaa dhamaan bulshada Soomaaliyeed iyo inta maanta barnaamijkan la socota ee Goobjoog oo ah inta ka maqanba hawada kala socota horta niyo waxa jirta Cumar fankii hore mise fankan dambe waxa jira eedo badan oo loo soo jeediyo oo ay kamid tahay inaan music live lagu heesi karin inaan kaman iyo darbuugadan lagu heesi karin taasina horta waxyaalaha badan aan ka dagaalano oo waxaan inta badan awood saarnaa inaan heesiyo hore sida kuwan maanta soo bandhigi doonaa aanu dib aanu soo qaadno anoo kaman ku heesayna iyadoo music live aan ku heesayno marka dadka qaarnina way jiraan bahalkan cabsi ka qaba fanaaniin jecelna way jiraan oo bahalkan u heela waxa la maanta waxaan la arko waa maasantahay Nimcaan waxaan ku bilaabanaa fadhiyada qaaciga iyo kamanku inta badan waxa caado u ah hees ka dhaxaysa oo fanaaniintu aad u jecel yihiin dadka dhageysta ee fanka ku xiran aad u jecel yihiin waa heesta heelo oo marxalado kala duwan iyo taariikh kala duwan soo martay isla markaasina eriyo kala duwan loo adeegsaday laakiin laxankeedu uu yahay hal mid waa laxan soo noqonaya waxaad ku daawan doontaan barnaamijka intiina hore u taqaanayna waa naga xusuusin Nimcaan waxaad nagu bilaabaysaa iyo macallimiinta kale heestii heelo say tahay onu daafurina
dhagaystay nolosha qurbuhu quruxda malahe nolosha qurbuhu quruxda malahe admaan qalanjooy dalkii qabana nolosha qurbuhu quruxda malahe admaan qalanjooy dalkii qabana qabyadu noloshay ka qayb tahayo qabyadu noloshay ka qayb tahay markaad qardhistaba walbaha madhane qabyadu noloshay ka qayb tahay markaad qardhistaba walbaha madhane wadada bariye kuwe heshadaye wadada bariye kuwe heshadaye warkiyo hayga goyn waraha tahay wadada bariye heshadaye warkiyo hayga goyn waraha tahay wadada maru wadiyalahaye wadada maru wadiyalahaye war dheer dalwanaag sanayda wadada maru wadheer dalwana sanayda aynaan bogsada ismoodahaye aynaan bogsada ismoodahaye
bogsadaan ismoodaay codkii bugtay way walaad tahay taniyo jigjiga jambiga kalushe taniyo jigjiga jambiga kalushe aynan jabuma jalaydeene taniyo jigjiga jambiga kalushe inaan jabuma jalaydeene irani dawayn mahalabsadaye leloy irani dawayn mahalabsadaye وهاجاك داوديال intaas aan ku soo dhaafnay heestaasi oo kamid ah heesaha runtii dadku aad ka u jecel yihiin taariikh ahaanna waxa la sheegaa waa heestii lagu bedelay balwada intii ka horeysay intii u dhaxaysay 1950 ilaa 45 nimcaan iyo aad u mahadsan yihiin dhamaanteen intii la daawanaysan waa ku mahadsan tihiin nimcaan hees qaraam oo xilligaas laga yaabo 60 sano ka hor in lagu hees jiray bilowgii aasaaskii fanka inaad ku heeso waliba cod fiican aad keenayso maxay macna ku sameynaysaa horta aniga macno weyn bay sameynaysaa oo waxa weeyaan horta heesayna hore qaraamkii waxa weeyaan waa sooyaalkii fankeena waa wax u baahan markastaba in ummadda dib xasuusin loogu sameeyo waa heeso u baahan in la kaydiyo oo markasta la xuso markaa run ahaantii aniga 900 jeer baan kiyo kontankii kala tahay happy ku ah way igala qiimo badan yahay heesaga ma sha Allah aad baad u mahadsan tahay waxaan ku xigsiisanaynaa heeso badan oo aad u xiiso leh ayaa inoo soo socda laakiin marka waxaan ku xigsiisanaynaa isla heeso kamid ah heesihii qaraamka loo yaqaanay waa laxankii loo yaqaanay Jawhar Luule dadka ku caan baxay waxa kamid ah Umar Luule inkastoo fanaaniintu ay ahayd golo furan oo inta badan lagu heeso Jawhar Luule nagu xigsiidana wasaay tahay Jawhar Luule ku xigsiina Umaro marka hore horta la raxmay heestan waxa ku caan baxay Umar Luule Umar Mahdi Allah naxariisto waxay kamid tahay heesaha sida khaaska ah aan u xiiseeyo aan u jeclahay xataa bilowgii fankayga inaad aragtay mooyaan waxay ahaayeen kuwiyaan hadii jeer aan isku day jireen inaan qaado ha run ahaantii markasta fanaaniinteena Soomaaliyeed waxaan ku bogaadinayaa in ay sooyaalka fanka in soo noolayaan la tixraaco oo waxa weeyaan hidiyo dhaqan waxaan lahayn oo qadiimiya run ahaantii baryahan waxaad moodaa inaan shiishax guureyno marba marka dambe soo shiishax guuraya in fanki la ilaawo in dhaqankeena la ilaawo wax jirta fanaaniintu waqtiyada qaar markaan rabno inaan suuqa soo galno si qaldan baan soo galnay marka waxaad moodaa inuu wixii laga dhigay yani wax ciyaar fanki oo aan xeer iyo loo fiirinayo marka insha Allah waxaan rajaynayaa bulshada inaan balan codkay ku gaarsiiyo kullu ma qaadi karo sidii Umar u qaaday Allah raxme laakiin isku dayana bal si fiican sidoo kale waxa iyadana aan idin bal qaadanaa heesaha nimcaan ee aad ku taqaanaan kuwiisa gaarka iyaga laftooda inuu idin tuso bal in codka uu maadaama xogaag waxa iska jirta xan fanaaniinta dambe dhalinyarada la yiraahdo computer iyo qalab iyo waxba lagu soo suubiyo lagu soo hagaajiyo marka nimcaan oo codkii heesiyaad ku taqaaneen ee muusikada aad ku taqaaneen oo jaabinayo isku qaadayo qalabkan idin hor yaal ayaa iyadana balan oo barnaamij ku jiri doonta nimcaan waxaan ku soo dhaweynayaa Jawhar Luule baday
عاشق وابلو الله يبارك عاشق وابلو ما بورناني وباري سدايو بوغيغو كبا توكبو سمايو بردهانو غراحينو بحي وجعل كايه تانو جيكو هاي الله جن عوادا ما جيسا tagay ila shabariyo baryan tagay ila shabariyo buhodebo ranka haysadayo piyanduray irtewa barigo bardankuwa regay burdabo anka baqayba nanadi hawdo bimehdi nafta qsin jita وجعل كايه تانو جيكو هايه الله جن عوادا ماشي سداي وجعل كايه تانو جيكو هايه الله جن عوادا ماشي سداي aad maasan tahay waa runtii waa cajiib waxa laga yaabaa dad badan oo barnaamijka gadaal kaga soo biireen isla ninkeedii heesaya inay shaki galiyaan nimcaan yahay kale marka si shakigaas meesha uga baxo heesaha nimcaan ku taqaanaan aad ku dhageystaan aad ka u jeceshihiin dhalinyarada waayelba ayaa iyada oo live oo hortiina laga qaadayo oo aan hore u duubnayn ee dib soo gudbinayna waxaan ka codsanayaa nimcaan markan heesiisa ugu dambeeyay kamid oo la dhahaa nooli kulante runtii hees aad anigu dadka xiiseeyay aan ku jiro ayaan ku soo dhaweynayaa marka hore si madama xuquuqda fanku astaamihiisa waxa kamid ah ixtiraamka marka ereyada qurxoon cidii u sameysay iyo laxanka ayuu kolka hore noo sheegi doonaa kadibna waxaan guda gali doonaa horta cumar heestaasi idaan wali kulantay waxa weeyaan oo heestii sanadkii hore aan soo saarnay waxaas kale abwaan xasan kaarshe oo inuu aad saaxiib u nahay ustaad maxamed miir balaxmeeyay waxa weeyaan heesaha anaka qudheeda saameyn badan bay ugu yeesheen oo hees waxa weeyaan oo far badan tahay bal marka insha Allah bulshada waxaan isku daynayaa hadii la raayna balan soo gaarsiino iyadoo kamana saaxiibka miirsal heestan kulka nacabku ka soo dhaxgalo nadal jacaylkiile nabaduna halkaas ka tagtay noqota reer waalan naanays ku raadiyo ka filo nabar ku soo gaadha naanays ku raadiyo ka filo nabar ku soo gaadha kolka nacabku ka soo dhaxgalo nadal jacaylkiile nabaduna halkaas ka tagtay noqota reer waalan naanays ku raadiyo ka filo nabar ku soo gaadha naanays ku raadiyo ka filo nabar ku soo gaadha soo dhaxgalo naaqus wuxuu saaree nabdigiyo dareemaha nalhaga nudaha beerkaaga nabsadana intuu ka dinu naafishkuba diiran kolse uu nashuush soo dhaxgalo naaqus wuxuu saaree nabdigiyo
dareemaha nalhaga nudaha beerkaaga nafsadana intuu kaa dilo naafishku diiran maantana nafqaybsigaano negida ku raasha maantana nafqaybsigaano negida ku raasha waxaan nolosha loo wada horta gurinagiya taage nasiimana ma yeeshawa ashqaniya samaan hayne nahlili iku daaye dayda nooli kulante kolka nuxuur la firshiyo kolkaaga naara fuufhaysan naqaayo jacaylkaba kolbaada naaska wada nuugeen aniguna ninimadaydaada nuucsan kugu siiye aniguna ninimadaydaada nuucsan kugu siiye kolka nuxuur la firshiyo kolkaada naara fuufhaysan naqaayo jacaylkaba kolbaada naaska wada nuugeen aniguna ninimadaydaada nuucsan kugu siiye aniguna ninimadaydaada nuucsan kugu siiye kursi aad nashaadkii jirteed naaxin garan weynay kiyo neefsanayad xubbiga naxashka sii saartay kuba nooc bartii waa kaas nuucsan kari waaye kursi aad nashaadkii jirteed naaxin garan weynay kiyo neefsanayad xubbiga naxashka sii saartay kuba nooc bartii waa kaas nuucsan kari waaye maantana nafqaybsigaano negida ku raasha maantana nafqaybsigaano negida ku raasha waxaan nolosha loo wada horta gurinagiya taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniya samaan hayne nahlilihi ku daaye dayda nooli kulante maantana nafqaybsigaano negida ku raasha maantana nafqaybsigaano negida ku raasha waxaan nolosha loo wada horta gurinagiya taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniya samaan hayne nahlilihi ku daaye dayda nooli kulante ku daaye dayda nooli kulante nahlili ku daaye dayda aad baad runtii hees aad u cajiiba nimcaan marar badan waxaan isweydiiyaa bahda fanka waxaa jiray nin maxamed salebaan tubic oo boqorka fanka ay u caleema saarteen marka codkaaga runtii marar badan waxaan isla waa tubic oo yar runtii kale dad badan aragtida way la qabaan oo ustaad Mirsaal iyo kamid yihiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo
codka tubaaci runtii waa badan waa u dhow yahay yani waa runtii tubaacina de waa nin martabadiisa la gaarsiiyey boqorka codkan yahay marka hees baan jeclaaday tubaac oo ciise warsame ciise dhancadin loo jiray runtii Allah naxariista dhintay oo abwaan weyn ahaa u lahaa waa gufaaco heesta gufaaco la yiraahdo gufaaco horta cumaro aad baa mahadsan tahay horta barnaamijkani waxa weeyaan barnaamij aad iyo aad u qiimo badan aniga waxaa sharafi ah inaan heesay fanaaniinteedii waa beri intii noolba iyo intii dhimatnaa Allah naxariistay inaan intii karaankayga aan hadba mar aan difcad soo goyno oo ummadda xasuusino sharafna way tahay inaan maanta aan ruuxaantii la yiraahdo tubaac bad waxay tahay farxad horta laga tahay walaa aan gaari karin maktabadii oo ka gaaray fanka heerkii oo fanka ka gaaray waayo waqtiga waxa oran karaa aniga fanku wuxuu lahaa haybad dal waastay iyo dunyo waxa weeyaan waqti aad u wanaagsan ayaa heesaan la qaaday marka insha Allah waxaan isku day bal inaan gufaac ku xisiino markasna bulshada waxaan u sheegnaa heesaan aanu qaadayno waa heeso hore xasuus baan ku jirnaa kulay boqolkiiba boqol ma wada qaadi karno sida ay u qaadeen fanaaniintii deelahay haybada fanad siiyay Allah naxariistay Umar iyo tubaax ugu horeeyaan marka waxaan isku daynaa balanti karaankayga insha Allah inaanu bulshada anigiyo isku haajee intaan guntaday golaroraye godobtiin qabaan garan waaye isku haadshee intaan guntaday golaroraye godobtiin qabaan garan waaye
aniguna garaadkayga gaasooay aadna garashadaadii ay garaabi weydeen aniguna garaadkayga gaasooay aadna garashadaadii ay garaabi weydeen gartan galaayana igargaari mayside sida galin abaare awgooni daaqan hawada gurome gartan galaayana igargaari mayside sida galin abaare awgooni daaqan hawada gurome gartan galaayana igargaari mayside sida galin abaare awgooni daaqan hawada gurome nimcaan intaa gufaaca haddaynu kusoo gudubno waxaa jirta hees majda oo ustaad cabdiqaadir oo hadda nala fadhiya laftiisa oo laxanka saaraad adiguna qaado marka heestaas cabdiqaadir waa xir nooga sheekayn doona kadibna adigu kugu soo dhaweynayaayoo codka halkan aan dadka uga siideyn doono wanaagsan heeska طبعا مجدة طبعا waxaan noo dhamaystiri doona sheekadeeda nimcaan qaali ah oo maaragtay haddii ilaahay ku ron yahay abwaanada Soomaaliyeed maaragtay nin qiimo weyn ku leh oo maaragtay Cabdullaahi Cumar Kibriit og la yiraahdo yaa heeska curiye ereyadiis sameeyay طبعا aniga laxanka ku daray oo maaragtay waa waqti xoogaa maaragtay dhowr sano laga joogo ee ahayd oo maaragtay طبعا nimcaan waa ku luuqeeyay oo runtii heeska adaageedii waa ay heshay kolley dadkeediina maanta inay wada joogaan oo malaynaya dadkeeda waa dhamaystirin maanta abaankuna saa ereyada waxaas kale og laxanka waxa saaray mirsal waa heesii ugu horreeyay waa 2014 waqtigii aan madax la soo galnay miidiyaha heesii hore aan qaadnay kamid ahaayeen laakiinse fursad baan haysana maanta inaanu la xamiistiilo joogo waliba isagoo kamankiisa macaana nagu soo markaa waxaan isbanaaba waa heesta oo inagoo iskaashanayna aynu ku dhufano dhirtiyo ubax muunad waxan waxa tahay mulaa magoolka dhirtiyo ubax muunad waxan waxa tahay mulaa baxo adnu moogisidaan kula miirkaceen amalin laga baxo adnu moogisidaan kula miirkaceen igu maran kalgacalo igu mina sidaan mitay ku arkay maalin qudhamaya kaa maarmaya igu maran kalgacalo igu mina sidaan mitay ku arkay
maalin qudhamaya ka maarmaya ماشي جحي أيقو مستيو ويقو ما حياة ماشي جحي أيقو مستيو مرنبا digu marag dalku yeelateen marnaba onaha digu marag dalku yeelateen igu maran kalgaalo igu mina sidaan bishde ku arkeen maalin qudhamaya kamarmaya igu maran kalgaalo igu mina sidaan bishde ku arkay maalin qudhamaya kamarmaya igu maran kalgaalo igu mina sidaan bishde ku arkay maalin qudhamaya kamarmaya san ma macanida dareen gaar ay sameysay maadaama ustaadkii la xameeyay laftiisu nala joogo mar kale waa ku mahad celinaya nimcaan waxaa igu soo dhacay hees aad runtii u cajiib oo xudaydi oo ereyada leeyahay isla markaasna uu fanaaniin kala duwan ay qaadaan oo Tubeec iyo Maxamed Mooge iyo fanaaniinta dhalinyarada intuba laakiin heestu waa hees runtii sanado badan sii noolaan karta sano noolayd in badan waa uur hooyo kolley waxa weeye waa heesaha dareenka kulanada marka la isku yimaado dad badan wada raali gelisa marka codkaagan macaan iyo fursadda noo ka faa'iideysanana waxaan jeclaystay heesta uur hooyo inaad markan nagu xigsiiso بسم الله الرحمن الرحيم horta cumaro waxaad heestan waa hees aad iyo aad u qiimo badan kow waxa xusid badan horta ustaad xudaydi Allah cimrigiisa dheereeyay waxa weeyaan dadka aan ku faano hadan fanaaniin nahay waqti kastana waxaanu aad iyo aad horta anu ka nimcaan ahaan waxaan ku dadaalaa fankeeni hore inaan bal in aan meel ka soo galo marka waa tanu kaliftay aanu kamankan iyo darbugadan soo qaadanay aanu umadii aan heesii hore soo qabno xudaydi Allah cimrigiisa dheereeyo markasta waxa weeyaan heestaasi waa heesaha ugu qiimaha badan leh aan duugoobin loona jecel yahay fanaaniin badan oo soo qaadan kuwii hore kuwii dhexe iyo aniga nimcaan ahaan markii ugu horeysay ee aan qaadayo aad baan salaamay ustaadka adiga la joogo aad ma santahay barnaamijku barnaamij aad u qiimo badan asxaabta waxa weeyaan kaliya laab ayaan maanta ugu mahad celinayaa
aabbo wada dhalay ee hubab walaala arrinkii yimaadaba isla kaashanayo isa siiya gacantii indhahaygu nuurkay weeldogsadeeno adna haysku kayamine urku yahay indhahaygu nuurkay weeldogsadeeno adna haysku kayamine urku yahay warkii adowgay kii laga abuuro nasiicabay dhimo kii ila wadaago sidan ku bilooba maahan karaysa sidan ku bilooba maahan karaysa indhahaygu nuurkay weeldogsadeeno adna haysku kayamine urku yahay indhahayga nuurkay weeldogsadeeno adna haysku kayamine urku yahay naftu waa amaani aaskayga geerida hadday buddigaayo igu gacan dambeeye dhaxalkayga admiga kii ugu dhawaayo dhaxalkayga admiga kii ugu dhawaayo indhahaygu nuurkay weeldogsadeeno adna haysku kayamine urku yahay indhahaygu nuurkay weeldogsadeeno adna haysku kayamine urku yahay indhahaygu nuurkay weeldogsadeeno adna haysku kayamine urku yahay waa kaag daawadayaal sidan horeba idinku sheegnay markii barnaamijkan furanay waa xusuusin runtii aynu fanaaniintii iyo heesihii la jeclaa marka laga soo tago heesaha nimcaanayga laftooda aad barnaamij ku daawateen nimcaano markan inagoo gabagabada barnaamijka joogna iyo macallimiinta kale ustaad xayle iyo ustaad cabdiqaadir heesta guriga samo oo ahayd hees ay tubeec iyo maandeeq wada qaadi jireen marka qaybta tubeec baynu labada beede tubeec ayaynu markaan aan codsan lahay in aad markana aan ku xigsiisano إن شاء الله ونبلعنا هذه الأرة. أوكي. وترجع حي يقد فرتين
jacayl igud furteen gabagamiyo ceel igaliseen lay gubto jacayl igud furteen gabagamiyo ceel igaliseen gadmayo darata gohayo olole gadmayo darata gohayo olole guriya samalahayo gestirona lahayo guriya samalahayo gestirona lahayo agabsan may waxaan go'aanaya ayna labagayano isafgarata noqone isafgarata noqone gabsan may waxaan go'aanaya ayna labagayano isafgarata noqone isafgarata noqone way 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 garashionak gudubtayn gacalniyo xigaan goyse garashionak gudubtayn gacalniyo xigaan goyse geedkii jacaylka guntibaad ku jartay geedkii jacaylka guntibaad ku jartay gurya samalahayo geestirona lahayo gurya samalahayo gestirona lahayo gabsan may waxaan go'aanaya ayna labagayano isafgarata noqone isafgarata noqone gabsan may waxaan go'aanaya ayna labagayano isafgarata noqone isafgarata noqone isafgarata noqone isafgarata noqone wahagaag daawadayaal runtii waxaan rajaynayaa oon hubaaba in aad uga hesheen aad heesahaas iyo xusuusintaasi aadka u cajiibka waxaan soo gaarnay barnaamijka gabagabadiisa intaasaan ku xirnaa barnaamijka waxaan u mahad celinaya nimcaan ustaad cabdiqaadir mirsaal iyo ustaad xayir oo bongaa tumayey ustaad cabdiqaadir oo isaguna tumayey kamanka macuudka iyo nimcaan oo codkiisa macaan runtii inagu madadaalinayay intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono dhammaantiin waxaan ku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu